السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيانيga oo kusoo noqday sidii qaliidle halkan ayaynu ka sii ambaqaadaynaa barashada shuruucda gaadiidka ama barashada sharciyada gaadiidka waxa leesonka loo yaqaano ama laysansiga waddankan aan deganahay waxa looga yaqaanaa shortcut waxaan wax badan isku dayi doonaa aniga iyo groupkaygu inaanu wixii aanu u aragno inay dadka Soomaaliyeed faa'iido ugu jirto annagu aanu ka caawin karno aanu ka caawino waxaanu idinka codsanaynaa mar walba iyo goor walba inaad nagu caawisaan wixii commenti ah su'aalaha qaybta ama qof waliba meesha uu isleeyahay waad u baahan tahay in sharaxaad lagaaga bixiyo commentiga hoose waad noogu qori kartaan idinkoo mahadsan wuxuu odhan jiray alcilmu bayna altalaamiid cilmigu wuxuu ku jiraa ardayda dhexdeeda laga helaa marka idinka cilmigiina aqoontiina iyo wixii annaga karaankayaga markaan isku darno dad badan oo baahi badan u qaba bay caawin kartaa waxaanu rajaynaynaa inaad nala fahantaan nagala qayb qaadataan wixii fikrada noo soo gudbisaan iyagoo comments ah waad mahadsan tihiin caawa waa qaybtii labaad baan bilaabaynaa markii aanu bilaabaynay waxaanu istusnay inaanu ka bilowno aniga groupkaygu waxaanu istusnay inaanu ka bilowno qaybta calaamadaha ama beg marketka waxa la yidhaahdo tabeelayaasha ama boorarka qaybta halkan caawa aanu ka bilaabaynaa waa qaybta su-aasha lixaad ama calaamadda lixaad adoo baabuurkaaga wato ama gaarigaaga wato baad waxaad ku soo baxday calaamadani wax saa u sii weyn maaha waxay tilmaamaysaa digniin ama warning waxay kaaga digaysaa for proof waxay kaaga digaysaa bridge-ka waxa la yidhaahdo ama buundo oo dhan maaha marka sidaad sawirka ku aragto buundadani ma aha buundo caadi ah waa buundooyinka kala furma oo ay hoostooda maraan doonyaha yaryar sidaa darteed waa buundo furmi karta ka taxadar waxaa laga yaabaa adigoo aan attention badan ama taxadar badan samayn inaad soo gasho dee biyaha ku dhacdo ama ay kula kacdo oo qaybta kale haddaad dhinaca kale ka timaado ay buundada kugu kacdo marka inta badan amaba dhacdo laakiin waa digniin uun ka hadlaysa waxaa kaa horeysa buundo kala furmaysa ama kala furmi karta intaasaa lagula socodsiinayaa mar kalaan ku celinayaa gaarigaaga markaad ama baabuurkaaga wadato haddaad aragto waddada koonaheeda calaamadan oo ka taagan micnaheedu wuxuu noqonayaa iska ilaali ama ka taxadar ama ka feejignow waxa kaa horeysa ama hortaada ah buundo laabmi karta ama furmi karta ama dallacmi karta kor u qaadmi karta si ay doonyuhu u hoos maraan iyo wixii lamid a qaybtaas waa qaybta waa mahadsantiin waxaan ku noqon doonaa su-aasha xigta ama calaamadda xigta qaybta lambarka 7 bay noqonaysaa halkan waa lambarka 6 calaamadda 7 bay noo gudbaynaa waa mahadsantiin qaybtan ama calaamadan oo ah qaybta ama number 7 waa calaamadda 7 wey ee casharkeena qaybta labaad ee hadda aynu duubayno waxay noqonaysaa calaamadii labaad bay ka noqonaysaa calaamadani sidaad arkaysaan waa baabuur ama gaari ku dhacaya biyo
adoo gaadiid ama baabuur ama gaari wada haddii ay calaamadani kaa soo horbaxdo macnaheedu waxa weeye digniin, taasoo lagaaga digayo inuu kaa horeeyo bridge ama meel qar ah oo biyo ka hooseeyaan oo aad ku dhici karto. Iska ilaali inaad jarka ama qarka ka dhacdo. Macnaha guud ee calaamadani ay bixinaysaa waa intaa. Calaamadahan dhammaantood waxaa la yihahdaa warning signs ba ingiriisiga lagu yihahdaa, ama warning market waddankan Sweden luuqadda Swedishka. Af Soomaaliga haddaynu ku eegno waa digniinaha khatarta ama calaamadaha ka digaya khatarta baa la yidhaahdaa. Nooc kastoo calaamadahan ka mid ahi waxay ka digayaan ama ka hortegayaan ama ay kuusii sheegayaan inay jirto khatarta gudaheeda ku sawiran. Sida baabuurkan ka muuqata, halkaa waxaa ka muuqda baabuur biyo ku dhacaya. Waa khatar jirta oo marar badan iyo meelo badanba ka dhacday. Marka calaamadan iyo calaamadaha la midka ahi dhammaantood waxay yihiin digniino, waxayna mid waliba muujinaysaa waxa waqtiga ama markaa gudaheeda ku sawiran. Tana ugu dambaysa oo aynu hadda ka hadlayno nambar 7, waxaa lagaaga digayaa baabuurkaagu ama gaadhigaagu inuu biyo ku dhici karo ama uu jarka ka dhici karo. Marka waa inaad ama xawaaraha dhinto ama aad taxaddar badan muujisaa. Ka taxaddar inaad ka dhacdo jarka ama qarka. Aad iyo aad baa umahadsantihiin. Waxaan noo gudbaynaa hadda calaamadda 8aad. Calaamadda halkan ka muuqata waa calaamad digniin ah. Waxay ka digaysaa Ojemnväg baa Swedishka lagu yihahdaa. Ojemnväg waa askari jiifa af Soomaaliga lagu yihahdaa aan malaynayaa, ama taago yar waddada dhexdeeda. Meelaha badan waxaad ku aragtaan in baabuurka xawaarihiisa la dhimo marka aad meel yaro kor u taagan oo uu baabuurka loogu talagalay in xawaarihiisa lagu dhimo. Inta badan calaamadahani waxay inta badan la dhigaa ama la suraa tabeelayaasha ay calaamadahan ku yaaliin goobaha iskuullada iyo meelaha goodinka ama carruurta iyo ay ku ciyaaraan xaafadaha dhexdooda. Micnaheeduna waa in la dhimo xawaaraha. Marka markastoo aad baabuur waddo ama gaari waddo oo aad aragto calaamadan, waa inaad maskaxda ku haysaa inay kaa horeyso askari jiifa af Soomaaliga lagu yihahdaa. Askariga jiifa inuu kaa horeeyo. Marka waxaad u baahan tahay baabuurka inaad xawaarihiisa dhinto. Haddii kale gaadhiga exalada ama candhada baabuurka iyo taayirada ay kaa jajabin karaan ama waxbay kaa yeeli karaan. Waxaa lagaaga digayaa in ay waddada dhexdeeda ku taallo meel yaro taagan oo loogu talagalay baabuurka in xawaarihiisa intaan la soo gaadhin la dhimo, ama askari jiifa inuu waddada ku dhex yaal. Marka inta badanna waxaad ku arki kartaa sidaan horeba u sheegay xaafadaha, goobaha waxbarashada sida iskuullada oo kale, goobaha isboortiga iyo meel kasta oo carruur iyo ay ka agdhow yihiin dad waaweyn. Tusaale ahaan hadday rabto xayawaanka, meelahaasoo dhan meelaha loogu talagalay in ay bulshadu ama samahadku ay ku badan yihiin, meelaha carruurta ku ciyaarta inta badan laga helayo iskuullada, si looga taxadaro xayawaanka eyda iyo wixii la mida. Carruurta oo number 1 ah oo waddada inay soo galaan, waxyaabahaasoo dhan baa lagaga hortagaa
calaamadan sababta loogu sameeyo waddada dhexdeeda. qofka gaadiidka wada ama darawalka waa inuu ku xisaabtama inay waddadu leedahay taag ama turbiyo yaryar, askari jiifo wax af soomaaliga lagu yidhaahdo. oyamveg swedishkay ku noqonaysaa. marka sidaas ayaad ula soconaysaa. inta badanna meelaha ay boorarkani ama calaamadahani ku yaaliin xawaarahoodu 30 ama wax ka hooseeyuu noqdaa. taasina waa warbixin dheeraad ahoo aanu idiin raacinayno. waad ku mahadsan tihiin. waxaynu u gudbaynaa calaamadda 9aad. waayahay, halkan waxaynu ku aragnaa digniin calaamad ku tusaysa ama kaaga digaysa in baabuurku uu geli karo meel siibsiibad ah amba simbiririxna waa la yidhaahdaa. ama waa khatarta siibashada baabuurka. khatarta siibashada baa la yidhaahdaa. waa inaad maskaxda ku haysaa markaad boodhkan aragto, haddaad gaadiid wada tahay ama dareewal, in ay waddadu ama cimiladu markaa baraf ha ahaato ama biyo dhulka ha yaaliin. hadday noqoto waxaa dhici karta oo kale waddadu inay markaa cusub tahay oo daamirkii cusub yahay, qoraxduna ay saamar tahay oo kuleelo tahay. wax kasta oo sababi karaa in baabuurku uu bareegi uu kuu qaban waayo oo ay siibsiibasha timaado. swedishka halka lagu yihahda ama inaad siibato. halkan sida aad ku artaan qoraalka sare waa warning for sliding weg. waa digniin ka digaysa waddada waqtiga ay siibsiibashada tahay ama sliberiga waxaa lagu yihahda ingiriisiga. qofku markuu calaamadan arko wuxuu ku khasban yahay inuu baabuurka xawaarihiisa dhimo, si tartiiba ama si deganna waddada uu maro. hadday winter tahay iyo hadday xagaa ama saamar tahayba. sababta loo dhigay ama loo suray calaamadan goobta aad ku arkayso, goob kastoo ay suran tahay sababta loo suray bay babaajirta. hadday saamar tahay aad ku fakarayso winter maaha oo qabowmi jiro ama dhulka biyo iyo barafma daadsana, wax laga yaaba in daamirku qoyan yahay sida inta badan dhacda. daamirku markuu cusub yahayna qoraxda markay aada u kulushahay way dhalaalin kartaa. marka wuxuu abuurayaa baabuurku inuu siibsiibto ama uu simbiririx ay meesha noqoto oo markaa bareega iyo wixii lamid ay qaban waayaan. marka mar walbo aad ku soo beeganto calaamadan waa inaad maskaxda ku haysaa gaadhigaagu inuu siiban karo, xawaaraha waa inaad dhinto, kadibna si tartiiba u marto soonaha ay calaamadani sugan tahay. waxaynu u gudbaynaa su-aasha 9aad. hadda waa 10aad. ka raalli ahaada, waxaan ka soo booday tii 9aad. 9aad baan dib ugu noqonaynaa. intaa ka dambow 10 su-aalood. fideogii hore oo 5 ahaa iyo fideogan oo 5 ah, saasay 10 ku noqonayaan. halkaasna waa kasii ambaqaadaynaa. su-aasha 9aad baan dib ugu noqonaynaa ama su-aasha 11aad. waxaan doonayaa inaan 9aad ku noqon maadaama calaamadda 9aad ay tahay calaamad aan loo baahnayn. waxaan hore uga soconaynaa oo aadaynaa calaamadda number 11. halkaas waxaa ku dhammaystirmaya 5 calaamadood oo fideogii hore ahaa iyo 5 calaamadood oo fideogan ah. waa mahadsantihiin. waa hagaag. halkan markaynu marayno, halkan waxaa inooga muuqata warning for staying scott. halkan waxaa la yidhi waxaa lagaaga digayaa duulduulka dhagax. calaamadan waxay wadaha baabuurka uga digaysaa waddada. waxaa laga yaabaa inay jiraan dhagax ama finiini ama quruurux waddada yaalla, kaas oo haddii xawaaraha baabuurka uu sarreeyo waqtiga aad waddadan marayso
ay sababi karto inuu baabuurkaaga taayiradiisu ay sayriyaan ama saydhiyaan qururux ama dhagxaan, kuwaasoo dadka waddada kula wadaagaya iyo xayawaanka ama iyo guryaha ama deegaanka ama berbertiga wixii ka agdhow inay wax yeelaan, oo gaadiid waddada agteeda ku baarkin karaysa inay muraadaha ka jebiyaan, dadka deegaanka maraya inay dhaawacaan, xayawaanka sidoo kale. Marka waxaa lagaaga digayaa waddada kugu soo socota ama kaa horeysa waxay yeelan kartaa qururux ama dhagxaan ama dhagax burburay. sidaa darteed xawaaraha waa inaad dhintaa si aadan u duulduulin finiini ama dhagxaan aadan ugu duulduulin dadka iyo wixii ka agdhow waddada. Caawa qaybtan waa qaybtii labaad, fideogii labaad aan ka duubno qaybta tarafiiga ama sharciyada gaadiidka, barashada baabuurka ama la soo bixista ama qaadashada shoorkuudka, caawimadeeda. Fideoga hore wuxuu ka koobnaa 5 calaamadood inaan ku sharaxnay. Caawana wuxuu ka kooban yahay kani 5 calaamadood iyo sharaxaadooda wada socda. Halkaasaynu ka ambaqaadaynaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin Soomaali weyn meel kastoo aad joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.